السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي أصحابتي إذا قالي ولا له شرفت له وولاشين إلفيس برتا إيقا داوانيسان وإلفيس فاميلي جانل يوتيوب كينا وإذن والك المشغولي وانا لك الأمي إلهي سبحانه وتعالى إذن بركيو إلهينا إذن إلاليو إلهينا إذن حفديو وإذن حالي ولا لإسواي مال دي جرى أرنباك لقيسي وإذن ومقناع arrimo jira awgood ayaan u maqnaa alxamdulilah laakiin hadda waan soo laabtay ilaahay baa ku mahadsan biidnillaahi kariim kuley waxaan u maraynayaa bartan waan ku kala faa'iideysan jirnay cilaajinta isdaweynta waxyaalo badan ayaan ku kala faa'iidi jirnay biidnillaahi kariim dad badan oo igu rafaaday oo lambarkay ku rafaadayna way jiraan lambarka shaqadiisa badan waa lambarka kaliya oo ku shaqeeyo oo la iga soo waco oo caadi u isticmaalo waaye oo publicada laakiin insha Allah tacaala waxa rabaa dadka aniga igu xiran oo yacni su'aalaha isoo weydiinayo oo dhibaatooyinka ay haystaan haday qoys family problem ay tahay haday qoys tahay isqabo oo wada degan ay tahay xaaladooda haday family kala tahay haday dad walaalo isku yar xun ay yihiin dhammaan lambarada ay igala soo xiriiri lahaydeen insha Allah tacaala lambarka waa idin soo dhigi doonaa casharka ku xiga ayaana idinkaga soo dhigi doonaa biidnillaahi kariim muuqaalka ku xigo ayaana lambarka idin soo dhigi doonaa walaalahayga sharafta leh إجارة للنقطة مدة إذن كمقناع إن شاء الله تعالى وأنا إذن كمشغولي لمبركي جن زائد وبيزو أها وتصرت وإذن كرا لجرينا يا واتاس بإذن الله كريم نمدي ذا كلا وحنوس عتي علاج أذو جرج هذا تشوجو إزدواء أذو جرج هذا تشوجو يعني مركز توقف بلا آذن ما هليلي كرو إنه يعني مال قرآن صار وتجو أما قف قرآن صار وراديو أما علاج وراديو مرور بقفك إنسان كما هليلي كرو ضدك قارنا هديبه حتى علاج ذي قرآن صاريد تجي لهاين قرشك إيه ظروفتي مسامحيسو إن علاج ذا تجان وإس قرآن صاران ضنت مسامحيسو مركب ولا ليه شرفت له وحارب إن هلك كف وذا فائدة سنة بإذن الله كريم أيام دويت مقالة كهلاي بانصور جاي برتي ذا يوتيوب كأن حسدين تأيه شرط وذا إيه ظالمين تأيه ظلم وذا أنا وهلاي برتي ذا صور جاي يوتيوب والله 10 كاس في العلن آد وفر بدن أيا كإمادي قبل ولا أو دبن أيا إلى سو حريري ويل حتى ولا أو دبن وإلى سو حريري الحمد لله ويل كي أسقى إلهي بكم هاتسن ودويني وكقران صارني والعلاجي الحمد لله هدو في عنادي رير كيسو دقنايا كال إسكا أرك أولا ننوحو أهارير يحاس له هدنا رير كيسي يحاس كيسي ما من الله حنون جردرتيسا المركب حربا إنا إذين شيغو arrimahan marka la yiraahdo xaasidiinta iyo shayaadiinta marka la yiraahdo iyo isha marka la yiraahdo qofka insaanka ee markay soo wajahaan ama ay bilowga ku yihiin waxyaalo badan oo isku arki karta ayaa jiro sida hadaa aragtid ina wahsanayso yacni culays ku saaran yahay caajis meel uu ka haysta aad garan ee caajisan tahay maanta dhina hurdida iska rabtaa shaqadaadi ina aad marabtid ina shaqada aadid iyo ina jiifatida ku yacni ku soo baxayso waa iska dhaafaysa waa shaqada dhameed oo ku nooleed oo ilmaha ku korsanaysay oo wax ku qabsanaysay oo ku intifaacaysa waay waxa ku soo sakamaraysa ina seexatidood bashaqo aadin ayaa ka doorbidaysa ina shaqo aado waxa kale oo lagu gartaa inay arimahaas ay ku soo wajaheen ama xanuunadaas ruuxiga ay bilow ku yihiin ama ku cusub yihiin waxa kale oo ku garan kartaa ayadana waxay tahay hadaa isku aragto xanaaq fara badan oo joogto ah yacni waxaad ku xanaaqday iyo waxa ka xanaaqdayna midna ma garanaysid ilmaha waa dhibsanaysaa ilmaha hadduu kula hadlo caadi xataa hadduu wax ku weydiiyo waa dhibsanaysaa naga aamusaa leedaha waxa kale oo ka mid ah haddii aa isku aragto maxaa la yiraahdaayey wadaadkaada adoo waxba idinka dhexeen oo dhibaato idin dhex oolin haddana sometimes kasto aa isku xanaaqaysaan aa ishiifaysaan yacni waad hiifanaysaa waxbaad yacni gocanaysaa waxaad gocanaysana lama yaqaano oo lagaa sameeyey hal xab oo lagaa sameeyena ma lahan yacni qofkan asagoo ku fiican oo biilkaada ku siinayo oo guri kiradii bixinayo oo ilmihi caafimaadkooda bixinayo oo wax walba dhiibayo iyo haddana waxaa lagu tusayaa wax yar oo duleelo ah oo iska leciif saqiir ah oo yacni wax yacni la sheego ama reer uu ku burburo ama reer uu ku dumo aanan ahayn ayaa haddana dhinacyada lagaa tusaa arrimahaasoo dhan haddaa aragtid gabaray waa xasid waa il waa lagu galay wayna kugu cusubta arrinta marka ayadana qabashaad leedahay isdawee adoo gurigaada joogo iska qabo adoon cilaaj tagin oon qarash bixinin oo meel istaagin adoo gurigaada joogo iska dawee iskana cilaaji adoo gurigaada joogo waa iska cilaajin kartaa biidnillaahi kariim madeeda kaleeto waxaa jirto gabdho badan oo abaayooyin ah
waxay tiri abaaya biil baa la isiiyaa biilka la isiiyo wuu igu filan yahay ma ahee weliba dhigaal lacag aan caadi ahayn aan ka samaysan karaa inaan ka dhigto haddana saasay tahay kama dhigto waxba meel kama dhigto biilka la isiiyo iguma filno wax aan ku bixiyo ma garanayo meeluu iga aada ma garanayo waa lagu garanayaa waxaasoo dhan waxay yihiin kulayl meel uu kaaga shidan yahay aadan garanayn baa kugu shidan olol meel uu kaaga furan yahay aadan garanaynin baa kugu furan haddana andan markaad fiiriso baahi yacni ma qabtid biil fiicanoo mustakafi ninkaada wuu ku siiyaa oo kugu filan alxamdulilaah haddana saasay tahay baahi baa tabanaysaa meesha ka tabanaysan mataqaanid waa wareersan tahay adiga dhan saasaa isaga daba wareeganaysaa sida rati macsaro shiidayo waxaasoo dhan waa lagu yaqaanaa waxay yihiin xaasidiinta sideedaba xasidka markuu ku galayo ama ku dhibaataynayo ama yacni uu ku ilaynayo ma ahan xasid inuu ku ileeyey qof yacni inaa isgaranayn oo adduunyada dhinac ka joogo kuma ilaynin qof aan ku aqoonin oo magaalada dhinac ka joogo kuma ilaynin waxa ku ilaynayo oo ku xasdayo oo ku yacni ku dulmayo haddaad fiiriso waa waxa adiga ku dhow waa qaraabadaada waa ehelkaada waa dadkaada ma ahan qof kaa fog yacni qofka kaa fog maba ku yaqaanaba muxuu kaa dhibaataynaa muxuu kaa xasdaa waa waxba qofka kuu dhow qofka kaa fog maba ku garanaya muxuu kaa xasdayaa wuxuu kaa xasdaa meesha maba yaalaan saa kumaba yaqaana aqoon iskumaba laha qofkaas laakiin waxaa seenberi ku xasdayo oo ku dhibaataynayo oo dhibka kula daba socdo oo nolol kuu ogoleen oo waxba kuu ogoleen waa qofka adiga dadka kugu dhow oo wallaahi gabar baa wallaahi waxay iiga sheekeynaysay maalidood isoo wacday markaa arrimahan ka hadlayay waxay tiri anoo ladan oo kaale iska araga oo laba cunug haysto oo lacag waxay tiri caqliga diidaysa biil u qaato oo yacni lacagta biilka u qaato qofkii loo sheego uu yaabayo oon guri kale ee deganinay tiri oo guriga ninkayga degan baa haddana oo nolosha aan ku jira aan la yaabay sidaa waxaa ii timid bay tiri eedaday aabbahay u ilmo dhashay baa ii timid bay tiri markii eedaday ay ii timid ilaa yowmu haadaa bay tiri biilkaygana meeluu ka baxa ma aqaan xanuun iyo jirar iyo dhibna kama baxo caruurtayda waxay tiri wallaahi noloshaydii cunugaan dhalay 2 jeer bil inaan 2 jeer dhakhtar geerin bay tiri haddana bishii 5 jeer baa ii qoranay tiri inaan dhakhtar tago anigaan weyn waxay tiri intaasoo jeer baan dhakhtar tagaa meel la iga hayo iyo meel la iga haysta midnana ma garanayay tiri markay eedaday ii timid oo ay tiri maasha allah biil fara badan oo ku siiyahay oo guryahan maasaga iskale oo waxaan kale marka waxaa la yaaban oo dadka bini'aadanka noloshaada qof lama sheer gareeyo ma hooyadaaba waa may xataa walaashaa noloshaada hala sheer galeyn xataa walaalka hala sheer gareyn noloshaada qaasa ku ahaato ha kuu qarsoonaato noloshaada hooyada macaan iyo ilmahaada wax aan ahayn oo noloshaada ku farxaya ma jiraan gabaray runta ku sheego noloshaada kaliya waxaa ku farxo hooyada iyo awlaadaada inaad horumar gaarto inaad wax qabsato inaad wax hesho inaad caafimaad qabto inaad socoto inaad ordayso waxa adduunka kugu jecel waa hooyada iyo awlaadaada haddaa bukooto kuwaadaa ka bukooto aa dhashay hooyadaabaa ka bukootay haddaa dhimatana hooyadaa iyo awlaadaada ka dhimatay cid kale kama aadan dhimanin marka noloshaada qofna hala sheergaraynin adiga qaasa ku ahaato waxaad haysatay cidna hala sheergarayn adiga hayso waxaad qof bili aadan hala sheergaraynin war xataa ninku qaba hala sheergarayn noloshaada iyo waxaad haysatay barwaaqadaada hala sheergarayn asagii ku siinaya xataa hala sheergaraynin inuu biilka mustakafi ku yahay oo dhigaal ka samaysat xataa asaga hala sheergaraynin waxaan haddaad la sheergaraynin dembi kugu waay sababtay dembi kugu ahayna kuu sheegaa waxaan aad seefgaraynayso awlaadaadaad u seefgaraysay awlaadaadaad meel u dhigtay wax adiga shaqsiyan yacni keliga wax ku qabsanaysa ama adiga aad dadkaala siisanaysa ma ahan waa waxaad awlaadaada iyo noloshaada u seefgaraysay dee asaga wuxuu wax ku siiye oo biilka fiican kuu siiye oo biilka wanaagsan kuu siinayana waa inuu ladnaantaada iyo wuxuu ka tarinayaa quruxdaada ayuu rabaa fahmaysaa marka wixii uu ku siiyey wixii aad ka dhigatay waxba hala sheergaraynin cidna aday waxaad qaas ku yihiin dhigaalka aad samaynaysaa awlaadaada u samaynaysaa mustaqbalkooda beri kamaal inay mustaqbal helaan ayaa u samaynaysaa ma meel kale geynaysaa adiga waa may waa waxa awlaadaada mustaqbal uga dhiganaysa marka nolosha sideedaba serious bay ku fiican tahay oo ku qurux badan tahay noloshaada sirra ku ahaato hana ku qarsoonaato waa iga talo casharada ku xigo iscilaaji adoo gurigaada joogo isdawee adoo gurigaada joogo oo xasadka ku daashaday oo wax la qabsan laadahay oo la dhibaataysan tahay iska qabo adoo gurigaada joogo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabillahi tawfiiq